waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay ahayd colonial secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu u dhacay inaa kulligii ka wada dharagsantihiin baan maraynaya maalintii aanu maalintii isniintii ayaanu hadalkii istaad markaa waxaan umaya dowladda ingiriisna awalba usii go-nayd waxa ay doonayaan inayna yidhaahaan hase ahaatee in baa meesha ku jirtay waxaa la hubinayay waxaan la doonayo ee dowladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay gelayso inay tahay iyo in kale la hubsanayay dabeeto labadii casho hore aanu saragnayba baadhniinun arrinku la baadhayay dadka meesha joogay iyo dadku sida wax u doonayaan iyo saa loo eegayay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxaa jibbo arrinku inaga yahay in la baadhayay bay ahayd dabeetana markii taasi caddaatay maalintii arbacadii gelinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary magaalo dabeetana khudbadda nimka la sheegay ayuu akhriyey hadalkii waxaa weeye guntiisii bisha kowdeeda Juulaay kowdeeda inaynu dowlad ahaano si aynu walaaladiin Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiisii noqday markaa maanta waddo dheer oo aynu soo maray ayaynu maanta maxaa hayday joognaa madaxeedii hase ahaatee midkii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelaynaa dowladnimo loo qayliyaa dowladnimadiiaan doonaynaa la yidhaahaa waa suura gashaa maanta dee naba soo qaylina helay dowladnimadiina hase ahaatee ka adag wuxuu yahay arrinka kasii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay dee helay dowladnimadii laakiin mas-uuliyad badan iyo dhib badan ayay iyana la imanaysaa marka iyadii maanta dagaalka kii u horreeyey ayaynu maanta hellaynu weyn garayn ku najaxnay ka maanta inagu hadhayna kii ka weynaa buu ahaa waxaa nabiga laga sheegay sala allahu calayhi wasalam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fadhiistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo nin waliba maxay hayday qoontiisii dheerayo ayuu yidhi baa la yidhi dagaalkii yaraana maanta waynu ka soo baxnay kii weynaana iminkaynu soo galay asxaabtii wada naxday baa la yidhi markaasaa la yidhi yaa rasuulullaahi dagaalkaynu maanta gallay mid ka weyn ma aanu filaynin ka weyn waa maxay dagaalkan aynu soo galayna midaynu cadow la dagaalamayna buu haa buu yidhi kaynu maanta gelaynaa iminka gallayna ee inoo hadhayna waxaa weeye kaynu nafteena la dagaalamayna wixii xun iyo wixiisan nafteena kaga celinaynay wixii xun wixiisanna ugu diraynay markaas inagii maanta ajnabi aynu dabadda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammaynay kaas way naga tegaya Juulaay maalintaa Juulaay baynu walaaladeen Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniiba iyo diinteeniiba aynu u talinayna markaa inay ku hadhay baa hawle haysaaye taladaa maanta tala weyn weeye inaynu isu talin karro wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna laynaga baxa ajnabigi inagii maanta laynoo kala tegay inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa ina eegaya ilaahay waxaa inagula qabta